حجامة توبين بو نبي قوس توبين مالين تشتدن بديكي نبي قال لك بوحيي عبد الله بن الزبير بن نبي قوي أول مولود في المدينة المنورة وياه زبير بن عوام بعد لي ويدين وأسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير بن نبي قوي ديك يقاد مالا عندك أركي كسو آس هلو ديبي ديك كبح جرك نبي محمد الله ديبي لسواس صلى الله عليه وآله وسلم markaasuu dadkii intuu iska eego meel cidla kolku ula baxay ayuu soo tartiibiyay tartiibta ma fahmaysan ya uu soo noqday hayo Abdullah ibn Zubayr dhiigaygii halkaad ku soo qarisay bal ii sheeg markaasuu meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican ma ku soo qariyay buu markaasuu halkee markaasuu calooshayday buu waan cabay buu dhiigaygii ديجي نبي محمد دول كينو وكشبه ووديده تأصول فرست وعبد مركز سوري ولما شربته ما حد عبته بكيدي ويل لك من الناس وويل للناس منك بكيدي ويل لك من الناس وويل للناس منك يا ابن الزبير عدة دقال كو قادنا وي بعضي عدة دقال كو سو قادنا وي بعضي برسولك كيدي بحق لجركيس maxaa galay kula tahay dhiigii nabiga galay jirkiisa nabigana waxay yiraahdaan culimadu nabiyada jirkooda wuxuu ilaahay galiyay 40 nin oo ahlul janna quwadooda ilaahay galiyay ninka ahlul jannahana 100 nin oo rag adduunka u dhigmaa baa la yiri bal xisaabi waa imsanin 40 nin oo ahlul janna quwadoodii baa la siiyay nabiga nin ahlul janna ana waxa uu la quwadiyaa 100 nin oo rag adduunka Musa alayhi salaam labadii nin ay saqabatay qibtiga iyo maartana kii reer bani Israa'iil ahaa xabad feeru sida ugu dhiftay fawakazahu Musa faqada alayhi naftu way ka dhacday kii waa feer kaliya marka abu nabi Abdullah ibn Zubayr cidda dagaalaad ku qaadana way baaday cidda dagaal ku soo qaadana way baaday buu kayay maanta laga bilaaba jirkaagiina naar waa ka xoroob rasuulku yiri jirkaagiina naar ka xoroob khalaas fursad bay heleen iyaku fursadda way ka faa'iideysteen ya muslim inaguna fursad baan maanta haysanaa fursadeen haysanaa waxaan nahay ummadii nabi maxamed baan nahay awalkeegii ma nihin bal aakhirkeegii baad moodaa inaan nahay aakhirkeegii ku u dambeeyay نحن السابقون ونحن الآخرون بالنبي يقولي أنك السابقين وجنة أجهر قلينا أنك أنا ومضها قدام بين أبو رسولك يقولي الفرس أبورك أنا أنك أجهر ريني أبورك ومضها أنك قدام بيني وأمدي ومضها قدام بيسبعنا هي ونحن السابقون جنة أنك أجهر قلينا أبو رسولك مالك قيامة سيأتي على أمتي زمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمرة زمن أيا من دون أبو نبي يقولي أمة إذا نك إسير هذا دين تكون دغن ودين تبرأ ودين تكون عمل فل ودين تدني نك إسير هذا وحول من دون دون دمع دمبيل نارا ملهين كرا دمبيل نارا نهيو من دون دون برجع بالصحابة كوير هذا زمن كاس زمن كنيك السنة هذا قبسن دونا ولا من دون دمع لو ديبي دمع الله هاي كريم أيو ما أنت سنيه النبي قال هاي كريم أيو وهي مجتمعي بعد ركعة أو ملمي أو كم ملمي ما ركتان تذكر رجال بيتك لان ملمن أساسا نسكت حق الله سداس بالقاركين واحد كده عيستان إني دي بدها ودوفان هر معي كده عيستان يا إلهه هي لبدي عيال فيزان وحرية إلهه يقصي قوة سيقاد فرصاص اسكو دخل ما زمن كان ما سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ترى انا يا وبدكيغ ريركغ وان كو دقمينا مجتمعي كلا كا غالبا
markaas saxaabadu yiraahdeen zamankaas ninka diinta qabsade ku adkaada ajarkiisa bal noo sheeg markaas uu kontonin 50 rajulan kontonin ajarkooga ilaahay u qoray rasuulku ka yiri nin saxaabi asara ku yiri man konton annaka miswa konton iyaka ma konton ininka abu ku rasuulku konton qarnigiina maanta joogtaan ajarkood buu qaadan doonaa waa zamanka iyaku diintu fresh helan fresh nabigay arkeen kaleey salaatu wasalaam malaa'iktu soo degeysay arkayeen quraanka kolba aayad lagu soo dajinayay shariicada u dhameystirmaysay maalintii nabigeena quraanka lagu soo dajiyay iqraab ugu horeysay aayadihii quraanka ugu dambeeyayna waxay culimadu ku sheegaan al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina arafay ku soo dagtay arafa mudayr kadibna nabiga adduunyada waa ka intiqaali doonaa awaakhir wa aayadihii ugu dambeeyay nabiga ku soo dagay kamid ah aayadaas la yiri al-yawma akmaltu lakum diinakum ilaahay ba kulay maanta diintiini baan inii dhamaystiray wa atmamtu alaykum ni'mati ni'madaydiina dushiina ayaan ku dhamaystiray ni'madu waa quraanka ni'madu waa sunnada nabiga ni'madu waa islaamnimada ni'madu waa hidaayada ni'madu waa maarifada ilaahay inaga maanta muslimiinta marka ni'mad la hadal qaado maxaan u haysanaa ni'mad ya adduunyo نعم الدنيا waa nicmad mu'minka adduunyadiisa xalaashu waa nicmad laakiin waxaad ogaataa iyadoo nicmada haddana waa fidnada adduunyadu وأما بنعمة ربك فحدث إمام قاضي عياض كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى آيات وحوك شيء وأما بنعمة ربك فحدث markii nabigeena aayada ay ku soo degtay ayuu nabigu saxaabadiisa ku yiri ana awwalu naas khurujan idha bu'ithu maalka qiyaamaha khalqigu dhulka ay ka soo bixi doonaan ka ugu horeeya dhulka ka soo baxay buu aniga khatibuhum idha ansitu maalinta bini aadanka la aamusin doono ka u hadlaya buu aniga shaaficuhum idha hubisu marka dadka la joojiyo cadceeda halka ay naga gubaysa madaxooga sida loo dul dhigo ee 40,000 sanadood banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay 70 xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalinta dadka u shafaacad qaadaya ee u wargeynaya buu nabigu waa aniga mubashiruhum ida aisu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaareynaya buu nabigu waa aniga liwaa'u alhamdi biyadi yawm alqiyama علنك مهدا مالنتا غعنتيدو كجرا علنك مهدا آدم عليه السلام وأبو البشر إبراهيم الخليل عليه السلام والنبي إبراهيم أدقرنيسان أبو الأنبياء لبدو دابا كسو قاد بو نبي يري مالك قيامة علنك يغا هوس جوك سنة يبدو علنك يغاس والله ليال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حنقرنا قدر كيس وأولادنا هم برنو محبة نبينا عيال كنا هم برنو وإنكنا محبة نبينا هم برنو وصليgiisa هم badino oo sunnihiisa han qaadano waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiin ah in hadii laga cadeeysiyo qaar diinta caayaya qaar malaa'ikta caayaya qaar ilaahi abuuray afka ku taagaya qaar nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaana ceeb u lahayn bay ku sheegayaan wallahi summa wallah maalin maalmaha kamida masaajidka nabigeena nin munaafiqa intuu asxaabta sida u eegay غزوة بالوجري غزوة أيو يري ساسو يا صحابتي كو قرآن آخرنا يبو أرك يا معشر القراب وكين والأركين القرآن أخرس كبدان له مركع عنتد لعنينا محين نقع عن توجوين أو نقع عروين مركع دجال كلا قالنا محين نقفل يسمو كين أنت عصويلي بس لصع مركع دجال قال أنا محين نقفل يسمو مركع عنتد لعنينا محين نقع عن توجوين أو نقع عروين صحابي بهذا الكلام قال لعله عمر انها markii uu nabiga u sheegay markii minigii munaafiqi wuxuu yiri de maxaa nabiga igu diribuu keen waan kaftameynay uun waska yar ba shaalaynayo waana soo daalayo hadalka sheegada waa lagu yar nastaaye markaa uu nabigu badilmay quraanka ilaahay soo dajiyay qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum
تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قلوا waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa qur'aaniga iyo rasuulkiisa ayaad ahaydeen kuwa ku dheeldheele ku jeesjeesa cudurdaarkaasi niga soconi maayo baa lagu yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen yaa macshar alquraa ereygu ku gaaloobay bal u fiirso kuwiinan ururkiinan qur'aan akhriska badan lahow marka la dagaalamayna maxay niga fulaysan marka cunto la cunayna maxay niga cir weyn labadaa kelmadood oo jeesjees uu u yidhi ayaa ilaahay caddeeyey ninkaas inuu gaaloobay khalaas ka ilaahay afka ku taagayna ka warran ka nebi maxamed afka ku taagana ka warran halkuu ka soo galaya diinta islaamka markaas ma carafnaahu liwaau lxamdi biyadii banka qiyaama buu nebi maxamed leeyahay calanka ma hadda maalinta ana hayo anan lay hoos jooga waa maalintee waa maalinta khalqigu ciirciirayaan aadan bay u tegayaan noo shafeecad qaad dhibtan anaa iniigu wacan buu leeyahay jannadii dembigii aan galaad kaga soo baxdeen anigu ma lihi ordoo kayrkay u taga ergada anu maanta ma lihi nuux bay u tegayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii waa aniga ummaddeeda ku habaaray ducadeyda maanta la aqbali maaye ibraahim alkhaliil u taga ibraahim baa loo imanayaa saddex been baan adduunyada ku sheegee tii in laygu qabtaan ka baqayaaye ordoo kayrkay u taga muusa loo imanayaa muusena wuxuu leeyahay anuu qof bini aadanaan dilay buu leeyahay ciisa bna maryam baa loo iman ciise cudurdaar sheegan maayo laakiin wuxuu leeyahay anigu ma lihi maanta markaasuu nebi maxamed uu yidhi anaa la iman doonaa yaa loo tegi doonaa banka qiyaama yowma aljamci laa rayba fiihi yowma ataqaabun yowmaydin tucraduun ina yowma alfasli kana miiqaata yowma yunfaku fi الsuuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaau fakanat abwaaba wasuyirat اljibaalu fakanat saraaba ina jahannama kanat mirsaada liلطaagiina ma'aaba laabithiina fiiha axqaaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا مالك أسوين مالك تدبات دوي تالله مالك أسوين نبي محمد لو تقي وليه هي أنا لها أنا لها أنا لها كدعادي صلى الله قبل يا وأنيقا كبريدي صلى الله قبل يا وأنيقا كشفاعتي صلى الله قبل يا وأنيقا حديث كلا نبي جن وكيلها نبي كستي إلهي أدوية دوشيدا duca la aqbalaa ilaahay siiyey nebi walba ducadiisii adduunyadu ku soo isticmaalay aniguna ducadaydii maalinka qiyaamahan khalqiga u dhigtaan ku anfici doonaa buu rasuulku yidhi ku salliya nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam maalinkaasuu nebi maxamed ina xasuusanayaa inaguna maanta sunnihiisii baan ilownay dhaqankiisii baan ilownay shareecadiisii baan ilownay bal nebigoo lagu daydo dhalinyartu waxay u arkaan inay tahay dib u socodnimo waxay u arkaan mutaakhir rajciyun dib u socod dib u noqod bay u arkaan may inaad adu hore u socoto iyo inaad dib u socoto waa la kala arki doonaa